madax furashaan u taagana madax furashaan u taagana anagu xilli kasta madax furashaan u taagana wax kale uma shaqeyna anaga dantayda camalkayga waa tagay dantayda camalkayga halkan waa ka soo jeedka shirkadda neeg waxaa muddo 3 bari ah ku sugnaa baabuurta bajaajka loo yaqaan ee ka shaqeyn jirtay magaalada Garowe kuwaas oo cabasho ka muujinaya go'aamo ay dawladda hoose iyo taliska qaybta ku soo rogeen tabayaaqadii asbuucii aynu soo dhaafnay darawallada bajaajka ka shaqeysta ayaa sheegay in canshuur iyo ganaaxyo loogu daray in laga joojiyo wadada halbowlaha u ah magaalada taas oo ay xuseen in shaqadooda lagu bartilmaameedsanayo laamiga weynaan mamri ka dhan baa lagu yiri laamiga weynaa oo meynka ahaa oo magaaladu shaqadu ka kala socotay waxa loo qaatay dhalinyaradaas in la yiraahdo shaqadiina caadi baad u joojinaysaan oo maba shaqayn ka dhaanin because qofku go'aan buu qaadan karaa oo shaqada uu ku banidi karo 4,000 bajaajku ka bixiyana cid iibsanaysa ma jirto meeshii doonu geyn karaa caasimada bilicda markaas waa la ilaalinayaa amnigeeda waa la ilaalinayaa shilalka iyo wax ilaahay qadar uu keeno weeye gaadiidka kama shil badna gaadiidka magaalada jooga waad aragteen shilalku geysto dhaweeyaha waad aragteen intuu maalin kasta dhalinyaro ku dhimata oday baa dhintay baa la yiri oo bajaajka dhan ma aragtay loo qabtay odaygu waa ka tacsiineen horta geeriyo timi waana wax qadar oo qoran shilalkuna waa dhacaani gaadiid shaqeynayo oo gaadiid dadweyne ah basku wuxuu dhibaatadu leeyahay waad aragteen gaadiid kasta oo shaqeeya oo ma aragtay bulshada u shaqeeya saamayn waa leeyahay gaadiid hawlo guud iyo dawladda labadu waan cashuuraan dawladda gaadiidka cashuurana la ka qaada 4 jeer baa gaariga xunka dhugdhugada la cashuura sanad la cashuura 3 bilood baa la cashuura maalin la cashuura maalin laga qaadaa bil la cashuura gaadiidka Garowe ka shaqeeya ama habaxo ama magaalada dhexda ka shaqeeya gaari lacagtana laga qaada ma jiro amni daraanu dareenay xun oo jirdila oo qori liifkiisa oo xireyna oo ma shaqaysan kartida oo hadii aad gashid sheel saldhiga markay hadda gashid hadda ka soo baxday inta ganaaxi lagu yiri bixid bar labaad lagu kala wareejinayo haddana dir lagu leeyahay mar labaad baa dir lagu leeyahay markay saddexaad baa dir lagu leeyahay ma soo dhaafi kar shaariga dadkii laga qabtay waxa la yiri laami weyn baan ka soo qabanay anagoo shaariga marayna askarta Puntland anaga waxaan baashan ka helaa ma deeqdo bishii January bishii February hadda socota $250 baan laga qaaday oo cashuura $250 anagoo bixinay baan amni ku weynay inaan ku shaqeysano $250 waxaan bixinay inaan amni ku helo oo ku shaqeysano baan ku bixinay amni baan ku weynay waxa la ma shaqeysan kartaan oo magaalada baa la kala magacaabay magaalada Garowe waa isku mid laamiga dheer jidadka kale soddonka shaariqo meel kasta magaalada Garowe waa isku mid ilaa la dheer ilaa iyo 12aad Garowe ka tirsantaa bajaajku ka shaqeeyaa annagu waanu qaadanaynaa bajaajkii waa la mamnuucay oo ma shaqeynayo Garowe ka shaqeyn maayo waa Soomaaliya naqaano ha shaqeysano Soomaaliya wax u dhaxeeya ma naqaano dawladdu iyadaa fasaxday oo dekada ka soo dejisay oo ogolaatay oo cashuur ka qaaday oo haddana cashuurtay oo dawladda hoose cashuureen warqadaha beersolka baabuurta lagu dejiyo dukaamanka isbeer baartiga lagu gadaa dawladdu iyadaa cashuurtay oo dekada u ogolaatay oo isbeer baartigu inuu gado ogolaatay marka dawladdu dhinacna inay cashuur ka qaadato oo wixii ogolaatay inay soo degaan dhinacna la yiraahdo dadkii masaakiinta ahaa lagu dhibo waa dhibaato hal mida bajtaajta shuruucda ay u baahan tahay ma aha in dariiq laga madnuuco waxa weeye dhaweeyaha ayaa boos banaysanaya isaga ayaa hadhow dadka shacabka lacagta ku qaali garaynaya ganacsigu waa tartan bajtaajta iyo dhaweeyaha iyo baska intaba waa ka dhaxeeya intaba uu ka dhaxeeya laakiin in la yiraahdo qolaha loo xiro suuqa oo inta kale ha laga xiro waa cadaalad darro wax suuragal maaha qolyaha bajaajta haddii shuruuc lagu soo rogayo mid baa xaq loogu leeyahay meesha dareewalku fariisto waa ilbaxnimo xumo in 3 qof la saaro naftayada iyo maalkayagii annaga waa loo soo dhigtay waana loo tashaday waxaan rabnaa inaan ka hadalno naftayada iyo maalkayaga waa qodobka uu koowaad ugu horeeyo annagu magaalada waa ka baxnay wixii aan hanti lahayn hubkayga iyo gaadiidkayga iyo hantidayda waa la baxnay waxaana ula baxnay naftayda iyo maalkayga baanu ammaan u weyn magaaladii waa ka shaqaysan weyn dalkii dadka iyo dadka u dhashay baanuna waxaan rabnaa dawladda Puntland lambar 1 ninka u horeeya waa Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha Puntland
waxaan rabnaa hawshaa inuu soo farageliyo wixii ka hooseeyo oo ku xigoo dhan inay soo farageliyaan waxaan ka codsanaynaa annagu hantidayadii ammaan baan u weynay waan ku shaqaysan weynay canshuurtanna laga qaada annaga baabuurta laga qaadaa baabuur laga qaadaa Puntland ma jiro bil baana laga qaadaa oo maalin baana laga qaadaa oo sanad baana laga qaadaa oo 6 bilood baana laga qaadaa oo 3 bilood baana laga qaadaa intaa waana laga meelna loo daayo saasoo ay tahay gaadiidka Garowe jooga gaadiidka kaliya oo gumaysiga lagu hayo lambar 1 naftiisa maalkiisa waa asaga halana anagu sida ku shaqaysana profession kala ma naqaan ayadaan naqaana hantidayada ayadaan galin meeshu waa magaalada anagu dadka shacabka baan u shaqaynaa u adeegnaa maalin walbana anaga intaasoo canshuura bixinaa oo maalin laan bixinaa oo bil laan bixinaa oo 3 bilood baan bixinaa oo 6 bilood baan bixinaa oo sanad baan bixinaa marqaati bay leedahay maqal haddana ayadoo ay sidaa tahay baa waxaan lagu soo dirayaa wiilal tuta wata waxaa lagu leeyahay soo qabta xarada keena sidii lacagta garaaxa laga madax farashaan u taagna anagu xilli kasta madax farashaan u taagna wax kale uma shaqeyno annaga dantayda camalkayga waa tagay dantayda camalkayga aniga kula hadlaya 3 jaamacadood baan ka baxay sababta uu kaliftay waxa way markaan shaqo ay amal waayay baan amal ka dhigtay taa waa qodob dawladda waxaan weydiinayaa waxaan iyada taarga u samaysatay oo tiri waa gaadiid sida bataatan waxaan taargada marka loo sameeyo waxay la dhigan tahay wadamaris taa waa qodob haddii dawladda u aqoonsan tahay waxaan inay gaadiid yihiin ha sheegto hadday soo aqoonsanaaday ha gubto baasiina ku shubto guriga ha gubto waxaan halkan uga sheegaynaa shacabka reer Puntland meel walba ay joogaan muhiimadda ay bajaaj ku leedahay waa og yihiin cashuur baan bixinaa waxa way muwaadin baan nahay xaq baan u leenahay inaan waxa way meel walba ka shaqaysano ma aha in la ku tacadiyo ma aha in waxa way aniga ciidanka waxa way booliska aan la shaqeyno in la ku tarakafalo taliyaha guud ee qaybta halka fariin waxa uga dirayaa shacabka iyo booliska waa dad saaxiib oo waa dad wada shaqeeya ayaan laga dhex faa'iideysan arrinkan waa arrin siyaasadaysan siyaasadda laga saaro dadka waxa way xamaalatayda siyaasad ma gasho degmadu waxa way dad fara badan oo waxa way shaqeyn jiray shaqo la'aan ka dhigtay arrinkan warka siyaasaddaas waxa way wax ka dambaysa shirkadda Golis oo ku bixisay in waxa way dhammaan gaadiidkan bajaajka laga saaro goobuhu ka shaqeysto danta ka leedana waxa way waa in waxa way magaalada dhan lagu wareejiyo dhawey oo u shaqeeyaan cadeyntaas waa haynaa waa jidda bulshada dhan baad ka arki kartaa bajaajta waxaa adeegsada bulshada magaalada Garowe kuwaas oo ay geyn jireen goobaha waxbarashada kuwa ganacsiga iyo shaqooyinka iyagoo sheegay inay ku doorbideen shaqo fudaydkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim marka waadi mar labaad waxa salaamaya inta sharafta leh inta muslima qof walba muslima marka labaad waxa halka ka cadeynaya anigoo arday wax barta waxna ka bartay iskuulaadka kamid ah magaalada Garowe waxaan annagu haddaan nahay dhalinyarta iskuulka waxa u soo lugaynaa subax walba isoo kaliya jirnay iskuulka inaan wax u barano waxaan awoodno iyo waxa bixinana waa boonti 1 boonti 2 wax la mid ah soo waxa faanteen maahan saaka ilaa shalayna waa u soo lugaynay iskuulkii waana ka soo habsaanay aan in muddo waxyaalo badanna waa naga xarimeen waxa walba soo raaci jirnayna meeshan waxay ahayd bajaajtina waa la joojiyay dawladda waxa ugu baaqayaa hadday dad wax garad yihiin oo wax fahmayaan inay bajaajta xalka u raadiyaan oo waxaan wax ka dhahanin waxaan deganahay aaga shaariqo maalin kasta wax soo raacayna bajaajti waa la joojiyay 3 bari ma shaqeyneen bajaaj laaman u dhacay maalin kasta boontu waa ku soo raaci jirnay hadda boontu keen annagu wax badan ma hayno dhawooyin oo boontu fa ogtiin marka wasaas dawladda waxa ugu baaqaynaa inay xal ka soo dhaniyo dawladda bajaajta ama noo fasaxdo ama caad u joojiso xasan baashe warbaahinta daljir Garowe adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan